ismaqal iyo soo noqod wanaagsan daawadayaasha nagu xidhan halkani waa maamuus media production muuqaalkan sheegare sidoo kale leegare waad ku mahadsantihiin sidaad nagu xidhan tihiin waxaan ku horeynaynaa wararka saacadihii aynu kasoo gudbnay social mediaha si aada u qabsaday ee la xidhiidha xaaladda dalka shiinaha waxaa lasoo warinayaa in halkaasi afgembi military uu ka dhacay sidoo kalena madaxweynihii dalkaasi ka ariminaya xabsi guri la dhigay isla mar ahaantaana gebi ahaanba laga dareemayay magaalada beijing ee dalka shiinaha dhaqdhaqaaqa ciidamo aada u tira badan oo militariga dalkaasi oo howlo roonda ka wada dalka shiinaha waxaa dhanka kale lasoo warinayaa in la xanibay dulimaadyadii maxalliga iyo kuwii dibadeed ee magaalada beijing garoomadeeda inta badan ay sameynayeen in ka badan 6,000 oo dulimaad ayaa gebi ahaanba la joojiyay baa leeyahay waxaana arrintan ay xaqiijinaysaa in arrimo badan ay ka jiraan dalka shiinaha madaxweynaha dalkaasi shiinaha Xi Jinping ayaa dhowaan kasoo laabtay shirweynaha ururka iskaashiga Shanghai kaasi oo ka dhacay dalka Uzbekistan waxaana kasoo qayb galay hogaamiyaasha gobolka gaar ahaan Ruushka, Iran, Turkiga, Pakistan iyo wadanka Asia madaxweynaha ayaa laga xidhay baa leeyahay garoonka Beijing fiidnimadii taariikhdu markay ahayd 15 September iyadoo haatan uu ku jiro xabsi guri awoodda dalka ayaa waxaa la wareegay ciidamada qalabka sida ee shiinaha ilaa 7 sarkaal uu hogaaminayo taliyihii militariga ee dalka shiinaha Li Qiang ayaa xilka la wareegay baa leeyahay taliyaha ayaa waxa uu ahaa mid u dhashay dalkaasi shiinaha isla markaana Abriil 1961 dhashay waxaana uu soo noqday taliyaha cusub ee taliska ciidamada qalabka sida ee waqooyi sidoo kale waxaa leeyahay sanadii 2019 ayaa loo dalacsiyay darajada ugu sareysa ee taliyaha ciidamada shiinaha isaguna sidoo kale xubin ka ahaa golaha dhexe ee xisbiga shuuciga ee CCP laba wasiir ayaa dhowaan lagu xukumay dil toogasho halka 4 sarkaal oo kalena lagu xukumay xabsi daa'in kuwaasi oo la aaminsan yahay in ay maleegayeen qorsho muddo kordhin ah oo loo sameynayo madaxweynaha cusub ee dalkaasi ama ay kasoo horjeedeenba qorshaha muddo kordhinta ee madaxweynaha shiinaha Xi Jinping oo ay iyagu doonayeen in markaasi ay u horseedaan labadii sano ee lasoo dhaafay ciidamada shiinaha ayaa la sheegaya in cadaadis ay ku hayeen madaxweynaha shiinaha Xi Jinping mana jiro meel uga baxay gurigiisa waan ka ahayn shirkii dhawaan uu ka qayb galay afgembigan ayaa waxaa qayb ka ah madaxweynihii hore ee shiinaha Wu Jintao iyo ra-iisul wasaarihii hore ee shiinaha waxaana ay ku qanciyeen baa leeyahay siyaasiga Sun Pin in uu noqdo xubinta guddiga joogtada ee xafiiska siyaasadda ama wadankaasi looga arrimiyo waa xubinta guddiga markaas u qaabilsan arrimaha amniga ee madaxweynaha ee dalkaasi si meesha looga saaro Xi Jinping sida ay muujinayso warbixinta aynu helnay 10kii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa socday shirar siyaasadeed oo qarsoodi ah waxaa la filayay in xisbigan yaraahda shuuciga uu ku dhawaaqo hogaamiyaha dalkaasi waxaana la saadaalinayeen mar kale dib loo dooranayo madaxweynihii hore ee shiinaha Hu Jintao afgembigan ayaa salka ku haya in madaxweynaha shiinaha Xi Jinping in uu maareyn waayey dagaalka dalka Hindiya iyo shiinaha oo xadka ku murunsan khilaafka maamulka gooni ugoosodka ee Taiwan ciidamada badda Mareykanka uu ku hortagi waayey ciidamada shiinaha ayaa dhowaan doonayeen dagaal ay la galaan kuwa Mareykanka sidoo kale waxaa leeyahay waxay doonayeen in ay la wareegaan Taiwan laakiin madaxweynaha la afgembiyey ayaa dhowr jeer is hortaagay duulaanka ay damacsanayeen afhayeenka baarlamaanka Mareykanka ayaa dhowaan booqatay Taiwan taasoo ka cariisisay ciidamada shiinaha iyadoo militariga shiinaha xitaa ay ka gooneed in ay soo ridaan duyuuradda ay leedahay ama ay la socotay haweeneydaasi laakiinse waxaa arrinkan is hortaagay Xi Jinping marka arrimahaasi laga soo tago waxaa lasoo warinayaa in markaasi madaxweynaha dalkaasi shiinaha Xi Jinping 16 bisha Oktoobar in uu qorsheynayo in muddo kordhin 5 sano ah in uu samaysto waxaana sida uu qabo sharciga dalka shiinaha madaxweynaha la dooranayo loo ogol yahay muddo laba xileed muddo xileedyo laba gaaraya laba taam waxa loo yaqaano laga bilaabo sanadii 1990kii madaxweyne walba oo dalka shiinaha soo maraya laba mar ayaa loo ogolaanay inuu xukunka dalkaasi hayo si kastaba ahaatee sanadii 2018 oo markaasi madaxweyne si toos ah u noqday Xi Jinping waxaa leeyahay maamulka wadankaasi waxa ay u ansixiyeen in meesha laga saaro muddada markaasi xadidaysa aan yiraahdo muddada madaxweynaha dalkaasi uu ka ariminaya ee labada mar isla markaana
Xi Jinping si uu xilka u hayo ilaa inta cibrigiisa ka dhiman uu awoodda waddankaasi u hayo. arrinkan ayaa mid si aada uga careysiiyey qaar ka mid a dadka mucaaradka waddankaasi shiinaha iyo sidoo kale xubnaha sarsare ee dowladda, waxaana soo baxaya warar aada u kala duwan oo sheegaya in ciidamada militariga dalkaasi si aada loogu soo daadiyey gudaha magaalada Beijing ee dalka Mareykanka. warar kala duwan oo soo baxaya ayaa sheegaya in Xi Jinping isaga qudhiisa xabsi guri laga dhigay. tanina waxa ay ahayd isku day uu doonaya in 3 mar uu waddankaasi markaasi isaga xukunkiisa hayo. wixii warkaasi ka faahfaahsan isla markaana soo kordho wararkayga dambe iyo barnaamijyada ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.